wadanka ku bilaabeen waa wadan dhaca galbeedka Afrika. Waa wadan boqolkiiba 90 dadkiisa ay yihiin Islaam. Aan ka hadli doona marka soo dhawaada. Wadanka koowaad waxaa la horta aan ku soo qaado doona wadamada Mali. Mali waa mid ka mid ah dalalka ugu baaxadda weyn galbeedka Afrika iyo maxaa lahaa caalamkaba. Wuxuu gaaraa badkiisa ilaa iyo 1.24 milyan kiiloomitir isku wareegu gaaraa. Waana dalka sideedaad ee ugu weyn qaaradda Afrika. Dadkiisa ilaa waxay ku hadlaan maxaa lahaa 40 luqadood ay ku hadlaan. Luqadda koowaad rasmiga wadankana waa luqadda Faransiiska. Markaas ay ku noqotana waa arki doonaa inta video ku jirno 40 luqadood ay ku hadlaan oo luqadda wadanka ka dhaxayso isku fahmay ee luqadda Faransiiska. Xuduudaha wadankan uu leeyahay waxaa waaye wuxuu xuduud la leeyahay Algeria iyo Niger iyo Senegal iyo Mauritania xuduud la leeyahay. Wadan ahaana waa wadan xiran oo ma lahan wax bad ah oo waa wadan xiran oo wadamo ay ku hareeraysan yihiin. Mali waa mid ka mid ah 12 dal ee dhaca saxaraha kulul maxaa lahaa mid ka mid ah wadamada dhaco kamid yahay. 3 qaybood loo qaybiyaa marka wadankan. Mid waxaa waaye tan koowaad oo ah saxaraha qalalan iyo dhulka siman ee saxaraha lamoodka ah iyo dhulka cagaaran. Caasimada wadankan waxaa la yiraahdaa Bamako waa magaalada ugu weyn dalka waana caasimada waxaana ku nool ilaa 2 milyan oo qof oo ku nool. Guud ahaan Mali waxaa ku nool ilaa 19 milyan oo qof. Boqolkiiba 50 dadka wadankan ku nool waxaa la yiraahdaa Mandi maxaa la sidoo kale waxay degaan wadamo badan oo Afrika kamid ah. Waxaa laga helaa masjidka ugu qadiimsan oo laga dhisay bulkeeti. Hay'adda UNESCO waxay u aqoonsatay masjidkan dhismaha ugu qadiimsan adduunka ee bulkeeti laga sameeyay. Wadankan waxaa ka dhashay ninkii maalqabeenka Islaamka ahaa ilaa taariikhda hadda inta la og yahay qofka dunida ugu hantida badan. Hantidiisu waxay gaartay ilaa lacag gaaraysa 400 bilyan. waana ninkii taariikhda inta la og yahay 1324 xilli uu xaj u aaday miilaadiga 1324 markii miilaadiga mareysay. ilaa waxaa la taariikha ay sheegaan inuu hore u sii watay ilaa 100 neef oo geel ah oo dahab uu ku raran yahay. Marka dahabkaas wuxuu u qaaday inuu sadaqo u bixiyo hadiyadna u bixiyo. waxaa la sheegaa xilligaas markii in dahabka adduunka iyo kii wadamada Carabta intaba uu dhulka gala uu dahabkii uu noqday raqiis lian asiga dahab wuxuu ku soo fasaxay magaalada cadad dhaafay. caadi ahaan dalkan waa wuxuu ku jira 5 dal ee laga helay dahabka Afrika. dahabka ugu badan Afrika 5 dal uu laga helo uu koob ka yahay. saasayta hadan wuxuu ka tirsan yahay 10 dal ee ugu faqirsan caalamka. Imagine in 5 dal oo dahabka laga soo saaray Afrika uu ugu horeeyo ku jiro hadana 10 dal ee caalamka ugu faqirsan oo ku jiro. Waqtiyaasii in musuqmaasuq iyo maxaa lahaa ay ka jiraan waxis daba marin. 34% dalkan waa dhul ku fiican beerashada halka 10% uu ka yahay dhulka maxaa lahaa kaymaha ah. 1883 taariikhda markay mareysay wadankan waxaa gumeysi ahaan ku dagay oo qabsada Faransiiska. waxayna iska saareen 1960 markii taariikhda mareysay. saasana keentay in wadankan uu noqdo luqadda koowaad ee looga hadlo luqadda Faransiiska maadaama uu wado gumeysanayay. saasi luqadda wadanka ku qaateen. waa 1883 ilaa 1960 wadan gumeysahay luqadiisa way dharin rogantay. marka wadankan waa wadanka koowaad oo waxaan kaga hadlaynaa xaqiiqooyinka ku saabsan Mali. insha Allah fiidiyowyada dambe waxaan rajeynayaa in wadan kale aan ku soo qaadan doono. soo dhawaada waxaan rajeynayaa inuu idin qanciyo aad ka heli doontaan. subscribe noo saar like share noo sii dheh si anagana dhiirigelin ugu noqoto asxaab kale u sii gaartay kaga bogtaan.